daawade ku soo dhawow muuqaalkeena maanta waxa uu ka hadlayaa sheeko xigmadaysan. hadda ka hor ayaa wiil waxa uu la soo baxsaday gabar, markaas ayaa waxa la socday oo safarkooda ku wehelinayay saaxiibkiisa. markay in muddo soconayeen, gabadhii waxa ay ogaatay wiilkan la soo baxsaday inuu ka caqli xoogaa fiican yahay wiilka saaxiibkiisa ah ee safarka ku weheliya. marka ay in muddo soconayeen ayay safarkoodii dheeraaday ayna daaleen, kadibna waxa ay farfariisteen geed hoostiisa. markaas ayay gabadhii ku tiri aynu nasanno. markaas ayaa wiilkii gabadha la soo baxsaday waxa uu yidhi waanba fadhinaaye maxay tahay aynu nasanno. halka wiilkii saaxiibkiisa ahaa uu kabihiisii si tartiib ah isaga gasiibay isagoo si deganaan leh u fariistay. haddaba in muddo ah markay soconayeen ayaa gabalkii ku dumay, kadib waa ay seexdeen geed hoostiisa. subaxii marka ay gaadhay ay soo tooseen ayay ku tiri haddaba aynu hamuun tiranno. wiilkii gabadha la soo baxsaday ayaa isagu waxa uu yidhi waxaanaba cunno ma haysanee maxay tahay aynu hamuun tiranno. halka wiilkii kale uu soo saartay caday uuna ku cadayday. marka ay soconayeen in door ah oo cabbaar ah ayaa waxa ay soo gaareen magaalo. halkaas oo ay tiri magaaladu ma dhisan tahay mise waa ay dunsan tahay. markaas ayaa wiilkii gabadha la soo baxsaday waxa uu yidhi magaaladu way dhisan tahay oo waad u jeedaaye maxaad ka wadaa magaaladu ma dunsan tahay mise waa ay dhisan tahay. halka wiilka saaxiibkiisa ahaa uu yidhi maye magaaladu hadda waa ay dhisan tahay. in muddo ah markay sii soconayeen safarkooda ayaa waxaa la soo agmariyey nin meyd ah. markaas ayay gabadhii waxay ku tiri ninkan meydka ahi ma nool yahay mise waa uu dhintay. markaas ayaa si cara leh oo xanaaq wejigiisa ay ka muuqato wiilkii gabadha la soo baxsaday ayaa waxa uu yidhi maantoo dhan waxaadna weydiinaysaa su'aalo reer aakhiraad iyo waxyaabo khalkhaldan. maxay tahay ninku ma nool yahay mise waa uu dhintay? waadba u jeedaa inuu dhintay oo meyd yahay oo la sii sidee. markaas ayaa wiilkii saaxiibkiisa ahaa waxa uu ugu jawaabay ninkan meydka ahi waa uu nool yahay. haddaba daawade inta aynan ka jawaabin hadallada gabadha iyo waxa ay ula jeeday commentiga hoose adigoo si taxadar leh uga fikiraya ku soo qor mid walba iyo waxa aad isleedahay gabadhu way ula jeeday. haddaba aynu ka jawaabno hadalladeeda iyo waxa ay gabadhu ula jeeday hadalladeeda. markii koowaad ay fariisteen geedka ayna ku tiri aynu nasanno, gabadhu hadalkeeda waxa ay ka waday kabaha aynu iska siibno. markii ay socdeen in door ah oo ay seexdeen soona tooseen subaxii ay gabadhu ku tiri aynu hamuun tiranno, waxa ay ula jeeday aynu cadayanno. markii ay soconayeen in muddo ah ayna soo gaareen meel magaalo ah ayna tiri magaaladu ma dunsan tahay mise waa ay dhisan tahay. gabadhu waxa ay ula jeeday magaalada ma laga soo jeedaa mise waa la jiifaa. markii ay soconayeen in muddo ah ayna arkeen ninka meydka ah, gabadhuna ay tiri ninku ma nool yahay mise waa uu dhintay. wiilkuna uu yidhi ninku waa nool yahay. daawade saan filayo waxaa isdhahday meyd waa meyd, sidee buu u noolaan karaa? haddaba gabadhu waxa ay ula jeeday nimankan meydka ahi ciyaal ma ka tegay oo ubad adduunka ma uga tegay? hadduu ubad adduunka uga tegay waa uu nool yahay oo magaciisii waa uu sii jiraa. hadduusan ubad ka teginna lama sii xasuusan doono, waayo isaga iyo magaciisiiba waa uu dhintay. daawade waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan.